الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون وحمانت مقالة هرقيسة أصغر اللوغو سمية الله ونحريسته مرحوم محمد عبدي آدن إسكيرسي أو كمدها أضياشا أقويانكا إيو حقارتكا وقرنك سومالان لها كاسو شالي قلبكو قريود مقالة مدحة سومالان إيه هرقيسة أسكا قرن إيه الله ونحريسته مرحوم محمد إسكيرسي اللوغو سمية مقالة هرقيسة وحاكا قيب قلي مدحوينها قرنك سومالان مدنة أحمد محمد محمود سيلانيو madaxda kala duwan ee golayaasha qaranka sida goortida wakiilada gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye inta badan golaha wasiirada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasiyiin madax dhaqameed aqoon-yahan waxgarad haldoor dhalinyaro waayeel fanaaniin abwaaniin saxafiyiin salaadiin ugaasyo boqorro ganacsato culimo awdiin mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xukuumadda Soomaaliland iyo boqolaal dadweynaha oo ka xaadiray aaskaasi qaran ee loo sameeyay Allah u naxariistay marxuumka marxuum Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse waxa lagu sifeeyay siyaasi waaya araga aqoon-yahan ahaa muruqiisa iyo maalkiisaba kaga soo qayb qaatay dib u xoreyntii dalka sidoo kalena qayb weyn ku lahaa aasaaskii iyo hirgelintii xisbi weynaha talada dalka ee kulmiye waxaa kaloo lagu tilmaamay in lagu xasuusan doono inuu ahaa nin ku soontanaa taariikhda Soomaaliland guud ahaanba gaar ahaan nabadeyntii iyo dib u dhiskii qaranka Soomaaliland marxuum Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland waxaanu muddooyinkii u dambeeyay xanuun ugu jiifay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ilaahay ha u naxariistee marxuum Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse waxa tacsi qaran u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaanu ilaahay uga bariyay inuu naxariistii Jannatul Firdawsa ka waraabiyo waxa garadka waayeelka aqoon-yahanka qoysaskii qaraabadii eheladii asxaabtii iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samariyay iimaan saadiqa ka siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون محمد عبد الإسكيرسي وحا إنسان وين ودلكن iyo dadka ka baxay ilaahay naxariis janno inuu ka waraabshayo ilaahay uga bareena ehelkii iyo qaraabadii iyo familku qasku ka geeriyoodan ilaahay sabri iyo iimaan iyo ummadda Soomaaliland ka siiyo ilaahay jannada ka waraabsho kulligeena sabri iyo iimaan ilaahay naga siiyo aamin faatiha wuxuu haliyay weyn wuxuu hal doorkii ummadan buu kamid ahaa wuxuu ahaa qof ku suntan taariikhda cusub ee Soomaaliland wuxuu ahaa nin dul badan wuxuu ahaa nin furfuran nin dadnimo leh ayuu ahaa muxuu ahaa nin adkaysi badan buu ahaa muddo badan buu xanuun u jiifay cisbitaalka Hargeysa oo madaxweynaha iyo aanu marar badan aan ku booqanay wuxuu ahaa nin aanay ka muuqan muxuu ahaa adkaysigu uu ka muuqdo oo xanuunkii uu la jiifay dul iyo sabir u lahaa yaqiinsan qadarka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naxariisto madaxweynaha iyo wasiirkuba sheegeen Cabdi wuxuu ahaa nin runtii qaaliya ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland qaali ku ah nin wuxuu ahaa runtii dun wanaagsan oo qof alla qofkii la kulma uu raad kaga tagay raad buu kaga tagay qof alla qofkii ilaahay abuurto ilaa ka ugu yar ilaa ka ugu weyn wuxuu ahaa nin raad kaga tagay runtii aad xasuusanayso aan weyn badan baan la kulmay wali qosolkiisii iyo hadaladiisii macana yani ayaan xasuusanayaa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii Jannatul Firdawsa ka waraabiyo eheladiisii iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku nooshahay inuu samiriyo iimaan ka siiyo dalaada wanaagsan buu ahaa ilaahay ha u naxariisto amiin eheladiisii iyo qaraabadiisiina sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo gidigeen badiyayno qaranka u adeegay maaha qoysuuna qaranka u adeegu ahaye ilaahay gidigeen sabir iyo iimaan ka siiyo إنا الله وإنا إليه راجعون
maanta waxaan joognaa aaskii marxuum maxamed cabdi iskeerse ilaahay ha u naxariisto isagii wax muslimka horreeyeyba innagana ha nooga daba naxariisto ehelkiisii qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo asxaabtii iyo qarankabana ilaahay samiriya ha ka siiyo nin wanaagsanoo muumino waxtar u ahaa dalka wax badan ka soo qabtay sifooyin badan lahoo deeqdu ka mid tahayoo bashaashadu ka mid tahayoo dada socod ka mid yahayoo talaqabeena buu ahaa ilaahay waxaan ku rajaynaa inuu jannadii firdawso ka waraabiyo ilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaynu joognaa aaskii marxuumkii maxamed cabdi aadan iskeerso waxa aynu ilaahay uga baryanaa inuu sabir iyo iimaan ka siiyo eheladiisii iyo qaraabadii iyo carruurtuu ka tegey iyo xaaskiisii iyo qaranka somalilan oo hawl badan ka soo qabtay dhiskiisii hawl badan ka soo qabtay waxaynu u baahannahay inaynu saamaxno waxaynu u baahannahay inaynu u ducayno waxaynu u baahannahay inaynu la xusuusto إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وطوال ودمنا يا إلى السمر إيمان نقصيه سبيشل لا إله إهل كيسي أصحابتي صاحبي لا إله كسيه سمر إيمان سوما لا إله سمر إيمان كسيه إذن الله سبحانه وتعالى ما أنا يكسبون أنت روان بون أنت إن الله الشن الفردوس إله كجلي الله بارنا سبحانه وتعالى محمد عبد آدم سكيرسه وحوها أنيقا بيرسونالي walaalkay isla markaana macallinkayga tababarahayga xagga mustabeedkaygu ahaa tiin culus oo iga baxay buu noqday in wuxuu ahaa bashaasha qaranka maanta nin weyn baa ka baxay oo taariikh iyo maamuus labadaba ku lahnaa ilaahay marka ugu horreysa waxaynu u baryeennay in maxamed cabdi iskeerse ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo maxamed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan dalkan halgan badan u soo maray samir badnaa muddo dheerna runtii aanu soo wada shaqaynay waxaan runtii aan halkan ilaahay uga baryay in lahay ehelkiisii uu samir iimaan ka siiyo si gaar ahaaneed waxaan tacdi kaliya laaba u dirayaa marxuumka ahalkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo qaranka uu ka baxay oo uu kaalin weyn iyo door weyn ku lahaa maanta waxay naga baxay nin taariikhda Soomaaliland ku weynaa siyaasadda Soomaaliland ku weynaa tiir dhaxaadna oo ahaa xisbiga kulmiye ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu samiriyo iimaan ka siiyo carruurtiisii iyo ehelkiisii asxaabtiisii iyo Soomaaliland oo dhan كل نفس ذائقة الموت إلهي هون نحرسته محمد عبدي سكيرسه نحرسته الله وقدقه الله نحرسته محمد عبدي وحنوين وقرن كقالك كل نفس ذائقة الموت مع خير ورمضان بدنتي إلهي waxaan rajaynaynaa inuu miisaankiisa xanaasanaadka ugu daro Ramadaankii waxa halii qaran waxa nin ku suntan marxaladii kala duwanaa oo qarankan soo maray mid walba ka soo qayb qaatay duweyn baa inaga baxay oo ka mid ahaa odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanada reer Somaliland waxaa kale oo tacsi u diray mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah qaranka Soomaaliland siyaasiyiin madax dhaqameed aqoonyahan salaadeen xildhibaano ugaasyo iyo dadweyne kale oo ka qayb galay aaskaasi qaran ee loo sameeyay Allah u naxariistay marxuum siyaasi maxamed cabdi iskeerse oo lagu aasay magaalada Hargeysa waxay marxuumka Ilaahay uga bariyeen inuu naxariistii jannada firdawsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay uu samiriye iimaan saadiqa ka siiyo waxa Ilaahay uga bariyeen inuu bisha barakeysanay Ramadaan ee uu geeriyooday uu ajarkeeda siiyo una dambi dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun